haddii yani aad aragto qof yani maanta dhan been ka sheekeynaya oo been ku hadlaya sidoo kale haddaad aragto qof yani balanta kaaga baxaya oo balan yani ku oofiyey yani in wax ku sameeyo iyo qof yani ku khiyaaneeyey xoolahaaga aad u dhiibatay intaas calaamad waxay ka mid yihiin munaafiqnimada. assalaamu calaykum. waxaa jirto 3 calaamadood oo lagu garto qofka munaafiq ah sida nabigeena calayhi salaatu wasalaam noo sheegay. calaamadaas waxaa ka mid ah marka uu sheekeynayo been ayuu ku sheekeynayaa. sidoo kale markuu balan qaadana balantii uma oofinayo oo ka baxaya. sidoo kalena markii la aaminana yani qofkii aaminay uu khiyaanaya sida uu Abu Hurayra ugu wariyay nabiga calayhi salaatu wasalaam. wuxuu leeyahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam aayatul munaafiq 3 idaa xadatha kadaba wa idaa wacada akhlafa wa idaa tu'mina khana. nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay aayatul munaafiq calaamadaha lagu garto qofka munaafiq ah 3 waa 3 weeyaan. idaa xadatha kadaba goortii yani uu sheekeynayo been buu sheegayaa. waxaa laga yaabaa markuu yani asxaabtiisa ula joogo ama saaxiibadiisa inuu yani maanta dhan u been ku hadlo. sidoo kale wa idaa wacada akhlafa yani goortuu yani uu balan qaado waxaa laga yaabaa in yani qof u balan qaado oo sidaas yani uu balantiin uga baxo. calaamadaas yani waxay ka mid yihiin calaamadaha yani lagu garto qofka munaafiqa ah. sidoo kale nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegayaa wa idaa tu'mina khana goortii yani la aamino yani uu khiyaanaya qofkii yani aaminay. waxaa laga yaabaa hanti ama maal yani in loo dhiibtay oo sida yani hantidii ama maalkii uu ku khiyaaneeyo. marka walaalayaal aan iska ilaalino calaamadaas inoo sheegay nabiga calayhi salaatu wasalaam. haddii yani aad aragto qof yani maanta dhan been ka sheekeynaya oo been ku hadlaya iyo sidoo kale haddaad aragto qof yani balanta kaaga baxaya oo balan yani ku oofiyey yani in wax ku sameeyo iyo qof yani ku khiyaaneeyey xoolahaaga aad u dhiibatay intaas calaamad waxay ka mid yihiin munaafiqnimada nabigeena inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam. assalaamu calaykum.